السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وين سلامي وصاحبك الحرسي ما أنتو حاربة هنا حوار سكيو فايدينو أريم كسابسن علنكا ساهر مقشين قاركين علنكا وحادق قار شكتان إنه سميين اللي دهو محمد عوال الليبان أو إن بدن سومالي أمتي لوضع معنا دبنا حاسو إفبحاي بروفيسور عامر oo dhahay calankaansiis banaanbu nin jareera sameeyay marna laga haayo inuu dhahay imaamka abgaal iyo suldaanka biimaala sameeyeen video dhawaan la soo dhigay baraha bulshada oo Bilal Bilshawi iyo Professor Ibi ayagana ay soo gudbiyeen oo sheegay Professor Ibi in calanka marxalad kala duwan soo maray oo contradiction badan ka dhaceen laakiin markii dambe la ogaaday inay sameeyeen macnaha ay go'aameen calankan in la qaato suldaanka biimaal iyo imaamka abgaal maxaa ka jira calanka macalin xilligaas imaada ma marxalado kala duwan oo soo mara bal waxaan rabaa insha Allah daqiiqado kooban inaan isku fahansiino oo isla eegno insha Allah dawladna waxaan dibadda u milicsano dagaalka labaad ee adduunka bilowgiisii dhulka Talyaaniga ka talinayay oo koonfurtan Soomaaliya iyo Eritrea dagaalo culus ka dhacay oo u dhaxeeyay Ingiriiska iyo Talyaaniga halkaas oo Talyaaniga guul weyn ka keenay guushaas oo la sheegay badan inay u sahashay maadaama Talyaaniga koonfur ka joogeen hub badan iyo maxallaha ay askar badan hubkaasina la sheegay inuu ka qabsaday dawladda Ethiopia dagaalkii oo la galay 1905 ilaa 1907 oo la galay Ethiopiaanka hubkaas oo la sheegay inuu ka qabsaday dawladda Ethiopia kadib dagaalkii labaad ee adduunka Talyaaniga sidoo kale Ingiriiska marka dagaal rogaal celin ku soo qaaday waxaa laga qabsaday gacanta ku haynta dawladda Soomaaliya sidoo kale tii Eritrea marka 1943 markii mareysay Talyaani wuxuu ku andacooday nimanka dagaalka waa anaga ka baxnay dagaalkan niwlama sii jirin maadaama ninka dagaalka nagu hogaamiyay oo ahaa Benito Mussolini asigana aan dilnay nina ogolaanay in dekedaheeni iyo garoomadeena aan weerar ka qaadin oo ala dirirtiin maxallaha ay sheegeen cadawgiini oo Jarmalka iyo Japan isla socdo marka anaga waxaan codsanaynaa oo miiska noo saaray in dhulka ka talinay dib noogu soo celiyo marka soo celintii dhulkii shuruudaha lagu xiray Mareykanka iyo groupkiisa ku xireen ee dhaheen wadamada adiga ka talin jirtay waa in maxamiidoodii maamulkooda la hoos keenaa qaramada midoobay kadib isfahan daro dhaxmartay waa lagu kala tagay shirkaas shir labaad dhacay oo maxallaha dawladda Talyaaniga ee rag ay matalay u dirtay Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo teamkaas sheeko dheer kadib waxaa la ogolaaday in miiska wada hadalka lagu soo wada laabto waa la isugu yimi meeshaas waxaa laga cilaamiyay maxallaha sheegay in Liibiya xorriyadeeda qaato oo meeshaas ay kaga codeeyeen 40 dawladood 10 dawladna ay ka aamuseen Soomaalina waxaa laga dhigay maxkamad hoos tagta dawladda Talyaaniga muddo 10 sano ah maxkamadaas in la hoos geeyay waxa uu codeeyay 40 dal 7 dalna way ka aamustay 3 dalna way diideen in maxkamad Talyaaniga hoos joogto laga dhigo 3 diiday waxay kala ahaayeen Liberia New Zealand iyo Sweden marka fikirkan calanka samaysashadiisa horta 49 soo bilowday waa markii ay maqleen Soomaaliya inta masan gudood dal noqon doonto banaan baxay shacabka ay dhigeen ay ku doonayeen inay astaan helaan kadib programkaas wuxuu bilowday maxallaha ay sheegeen inuu gaaro Muqdisho waxaa jooga markaas consulkii ama dadkii ku matalayay shacabka Soomaaliyeed golay baarlamaanka xiligaas gacan ku sameeyska Talyaaniga la shaqeynay kuwaas fikradooda markay gudbiyeen la qaaday loo geeyay wasiirka Talyaaniga ama ninkii boqorka Talyaaniga xiliga ahaa aqbalay kadib waxaa la isla qaatay in calankii marka anaga kii Talyaaniga la haajiro in inta noo la bedelo noo la wareejiyo astaanta Talyaaniga waxay ahayd sawirkan hoos ka arki doontiin kadib isbedelada oo soo maray aakhirkii 1954 waxaa la go'aamiyay September in laga saaro shabeelka dhaxda kaga jiro calaamada guduudan kore tan hoose kadib calan buluug oo xidig shan gees leh ku sawiran kaliya inuu noqdo calankan ma ahayn mid Soomaaliya kaliya u qaasa Italian Libya way lahayn astaantan oo kale ayadana waa tan hoose taala Eritrea sidoo kale ayadana way lahayd calan noocaana marka dhamaan wadamada Talyaaniga soo gumeystay calankan shaqadan leh watay dadkan marka u riixanay qaab qabiila Cabdi Cawaal Maxamed Cawaal Liibaana iska leh iyo maxallaha nin jareera sameeyay iyo suldaanka biimaal iyo imaamka abgaala sameeyay nina dooqiisa la aanshiisa ogolaashiisa calankan lagu ma sameyn sababtoo ayaga dhan buuxi aayeen
rag la heesto ummad kale hoos imaado agartaa malena marka wari dhamaadkiis waxaan dhihi lahaa dadkan taariikhda qabiile hayo oo nin walba isleeyahay cidaa taariikh u riix haddana bilaa source socdo horta Soomaalida jiilka hadda jooga waxaa kala tali lahaa qof walba professor isku sheega ama qof walba taariikhyan isku sheega meelna soo fadhiista asoona wadan cadeen ku dhihin article-kan soo baxa xilligaas dhacdo ka hadla asoona dhiheenin hadduu meel soo fadhiisto warkiisa qaadanin agar Soomaa daliil la'aan cadeen la cidna lama dhageysto marka waxaan rajaynayaa in dhalinyartii ay noqdaan dad abdeeda oo ugu yaraan haddii primary source la waayo qofka dhahay dhacdo xilligaas dhacdo qofka qorahaya adoon dhihin xataa secondary source qof xilliga markii wax dhacayeen joogay laga wareystay oo kale is okay laakiin in meel la soo fadhiisto loo nin hebel hadda kor la fadhiistay oo hebel asaan ii sheegay Soomaaliya xukuma ma jirtay tuug nin maqan ama nin dhintay oo marqaati ka dhigta Allah marka laga feejignaado dadkan beenta baafinayo oo faafinta ku wado in macnaha la ogaado in waxay wadaan wax jira aysan ahayn xaqiiqdana ay weli qarsan tahay